ma garanayo meesha uu ka helay beernugeel ayaan u hayaa dhibaatada uu ku jiro ee raadka ku yeelatay laakiin taas micnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedayo jenaraal saadaq waan hubaa inuu xilli adag marayay waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn waxaan kuu sheegi karaa si aan khalad lahayn in jenaraal saadaq aan wax kaalina ku lahayn dhinac kasta oo hawlgalkaas amni ah hawlgalkaas waxaa amarkiisa bixinayay saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee nisa ee ma aha xafiiska gobolka banaadir waana laba xafiis oo kala duwan jenaraal saadaq kama shaqaynaynin xafiiska xarunta dhexe ee nisa markaa xitaa qayb kama ahayn xafiiska hawlgalka sameeyey gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay jenaraal saadaq isla markaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo markhaati ah oo arkay jenaraal saadaq in howlgalkaasi uu hogaaminayey madaxweynuhu soo garaacay waajiyuhu uu weydiiyey ninka aniga ii ah waardiyaha gaarka ah ama xaraska ama igu dhow aniga qofka professionka haddii professionka ii ah madaxweynuhu ka furay wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur aan rabaa weliba ereyga wuxuu isticmaalay madaxweynahan u socdaa ereygaas uu isticmaalay waa laga furay xididda wiilkii laab ayuu ku dhuftay jajacad ayuu u dhacay waana afgembiga u dhacay rabayaha yarkiina wuu suuxay ilaa weerar ka dhamaadana wuu suuxsanaaba kabacdina wiilashii ayay dileen lacag hay dibnad cayaarayay hadda waan maqlay codkiisa waan arkay darkuu qabaan ogahay nooca u yaalay meeshay tagnayaan ogahay keligeyna maanta laba qofood oo kale guriga ku jirtay yaa joogtay iyo dad kaloo fara badan wax maa hadda qarsan isagaa hogaaminaya ciidanka isagaa mas-uul ka ahaa isagaa operationka madax ka ahaa guriga waxaa gudaha usoo galay 5 qofood oo markii weerarka uu dhammaaday reer 20 daqiiqo oo socday sida ku xusan qoraalka uu diray qareen shulman dadka markhaatiga ah ee uu qareenku xusay waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed cali sanbalolshe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo uu saadaq hoos iman jiray balse xilliga weerarka uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa markhaati furkiisa naftii horreysay waan isaragnay sarkaalkaas isaga ah oo abukaataha u ah ama qareenka u ah saadaq su-aalaha uu weydiiyana way koobnaayeen 4 ilaa 3 ayayna ahaayeen waxayna ahaayeen kow xilligaan saadaq isbaranay muddadaan ku shaqaynaynay habdhaqankiisa shaksiga wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogaay aan u sheegay marka waxaan markhaatigan ku kacay waxay ahayd wixii aniga iga quseeyey intii aan wada shaqaynaynay aniga iyo saadaq wixii aniga iga dambeeyena wixii hadda uu geystay ama dhibaato ama aniga operationska qaarkiis wax aan ka sheegi kara intii ma jirin intii aan ogaayna waa ka sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xir ilaalintu diiday inkastoo aysan VOAdu xaqiijin wuxuuse xusay inuu la tashiyo la yeelan doono qareenno kale oo dacwad dalka dibaddiisa ah uu furi doono dhowaan isagoo ku eedeeyay dowladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shakhsi dembi galay dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadaq howlgalka hogaaminayna annaga indhahana ku aragnay waa ninkii hoogeyna iyo xarunteena soo weeraray dowladda waxaa laga rabaa haddaysa saadiqayn qofka weerarka geystinay sheegtay cidda geysta weerarka kale ayaan la wadnaa qareenno howlahaas ku aadan in muddo ah hawshaas ay noo socotay maralaali markii talooyinkaas ay noo dhammaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan iyo looga baahan yahay oo u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhammaato ayadana haddii la yidhaahdo waan la wadaagi doonaa public iyo dadka soomaaliyeed laakiin taladeeda iyo qareenno ayaan la wadnaa hawsha taliyihii hore ee nabad sugidda cabdulaahi maxamed sanbalolshe ayaa ka warramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cidda ay ka go'do talada kama dambaysta ah horta aniga weligay goobjoog kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeeciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo askartu ay go-aamin karto ma ahan waa howlgal si siyaasi loogu go-aamin karo haddii askarigu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aantood la fuliyey laakiin waxay la tahay
weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasiya oo kasoo go-aya meesha ugu sarraysa inuu yahay. Qaren Shulman ayaan weydiiyey haddii warqadii uu u diray xiriiryaha guddiga qubarada Soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah. Not really. We got a letter from a legal officer at the UN essentially saying they will not reply. That Mr. Bahadur maya runtii waxaanse warqad ka helnay xafiiska dhinaca sharciga oo noo sheegay inaysan ka jawaabin arrinteenna. waxaa kaloo noo sheegeen in Mr. Bahadur aysan xilligan ku habboonayn inuu ka jawaabo islamarkaasna uusan nala kulmi karin. Mr. Bahadur waxa uu hogaamiyaa golaha khubarada Soomaaliya inkastoo dawladda Soomaaliya aanay aqoonsanayn, wuxuuna diiday inuu wajaho oo uu ka jawaabo arrintan guud ahaan. General Saadiq John ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Soomaaliya ee yimid magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee ka qayb galaya kulankii guud ee qaramada midoobay. dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay in aynu la xiriirno General Saadiq si uu uga jawaabo eedahan, waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlayay qareenkiisa Jeremy Shulman. intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo. Monitoring Group's report from last November. So this letter should not be in the public domain because it relates to a very confidential matter relating to unsubstantiated and inaccurate accusations against General Sadak. But the letter, we believe, was leaked by someone at the United Nations, possibly someone related to Mr. Bahadur or the panel of experts. We don't know. marka hore aan caddeeyo warqadaasi waxay ahayd inay ahaato mid sir ah, waxayna jawaab u ahayd lifaaq isna sir ahaa oo loogu jawaabayay warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobay oo soo baxday Novembartii hore. marka warqadani ma ahayn inay bannaanka taalo, waxay la xiriirtaa arrin sir ah taasoo iyaduna la xiriirta eedan sal lahayn oo aan sax ahayn oo liddi ku ah General Saadiq. hase yeeshee waxaan aaminsanahay in warqadda uu dusiyey qof qaramada midoobay ka tirsan, laga yaabay qof xiriir la leh Mr. Bahadur amaba kooxda khubarada, ma garanayo qofkaas. laakiin maadaama hadda ay warqaddu bannaanka taalo, iyada ayaa isku hadlaysa. haddii aan soo koobo warqadda waxaa loogu talagalay in lagu diido waxa kooxda dabagalku ay ku sheegeen warbixintoodii 28 November. si buuxda oo dhammaystiran aan ku caddaynay in sheegashooyinkaasi ay been yihiin, sal iyo caddaymana aanay lahayn, taxadarna aan laga samayn, isla markaasna dhaawacaysa sumcadda iyo magaca wanaagsan ee qof hufan oo sarkaal muhiima ka ah dawladda Soomaaliya. faahfaahin badan ayaa ku qoran warqadda, laakiin muuqaalka guud waa waxaan hadda iri. si aan uga hufo magaca General Saadiq eedaha dhaawaca geysanaya ee kooxda dabagalku ayna caddayn u haynin, shaqana ayna ku lahayn marka horeba. sidoo kale waxaan la xiriiray Jay Bahadur oo ahaa xiriiryaha guddiga qubarada arrimaha Soomaaliya ee Monitoring Group, wuxuuna ii sheegay in maadaama warbixintaasi ay ahayd mid qarsoodi ah oo uu golaha uun la wadaagay in uusan sharcigu u saamaxaynin inuu ka jawaabo wax su'aal ah oo warbixintaasi ku saabsan. haddaba mid ka mid ah eedaha loo soo jeediyey Saadiq John waxaa ka mid ahaa inuu hogaaminayay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ciidamada dawladdu qaadeen, kaasoo lagu dilay 5 ka mid ah ilaaladiisa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida weerarkaasi uu dhacay, bal haddii uu dib wax yar inoo xasuusiyo. ciidanka 17 December 2017 soo weeraray gurigeyga waxaa hogaaminayay Saadiq Cumar Cabdirajaan la yaqaano oo markaas lahaa taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir iyo ciidanka hogaaminayay. marka weerarkaasi ayaa la socotay 25 daqiiqo qaatay, waxaa lagu dilay 5 wiil oo ilaaladooda kamid ahayd oo habeenkiina kabahooda lagu aasay ilaa haddeertan aanan aqoonin meesha ay ku aasan yihiin. marka qareenka waan arkay warqadiisa oo u diray guddiga u qaabilsan qaramada midoobay dabagalka qaybteynta hubka Soomaaliya, si dadka aqalaasaha iyo xasiloon darrada Soomaaliya ka wada u qaabilsan. aad iyo aad u yahay warqad runtii aan ku dhisnayn wax oo adilo ah iyo wax caddayna aan ku dhisnayn, qof oo lasoo warsaday
oo dawladda ka tirsan oo la rabo in lagu bari yeelo banaankana looga geeyo weerarkii guriga ama xarunta xisbigeena ka dhacay saadiq asaad hoggaanka howlgalka habeenkaas isagaa qaabilsanaa cidda ka sarreysay amarka soo siisay iyo cidda ka dambeysay waan la ogyahay laakiin aniga waxaan kugu markhaati furayaa inuu isaga yahay qofkii hogaaminayo weerar. qareenka jenaraal saadiq john shulman waxa uu sheegay inuu la hadlay dad ku dhow jenaraal saadiq oo dhammaantoodna u xaqiijiyey inuusan weerarkaasi lug ku lahayn. qareen shulman oo ka jawaabaya eedaha cabdiraxmaan cabdishakuur ee ku aadan in jenaraal saadiq uu hogaaminayo weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa ayaa waxa uu yiri I don't know where he's getting that from. I certainly have sympathy for the situation and the predicament that impacted him, but it doesn't mean that he's accurate in accusing General Sadak of this. I'm sure it was a very difficult time for him and a frenetic episode. ma garanayo meesha uu ka helay beernugeel ayaanu hayaa dhibaatada uu ku jiro ee raadka ku yeelatay laakiin taas micnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedeeyo jenaraal saadiq waan hubaa inuu xil adag marayay waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn waxaan ku sheegi karaa si aan khalad lahayn in jenaraal saadiq aan wax kaalina ku lahayn dhinac kasta oo howlgalkaas amni ah howlgalkaas waxaa amarkiisa bixinayay saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee nisa ee ma aha xafiiska gobolka banaadir waana laba xafiis oo kala duwan jenaraal saadiq kama shaqaynaynin xafiiska xarunta dhexe ee nisa markaa xitaa qayb kama ahayn xafiiska howlgalka sameeyey. guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay jenaraal saadiq islamarkaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo markhaati ah oo arkay jenaraal saadiq in howlgalkaasi uu hogaaminayey. iriduu soo garaacay waardiyuhu uu weydiiyey ninka aniga ii ah waardiyaha gaarka ah ama xarajka ama igu dhow aniga qofka protection v I p protectionka ii ah irida ka furay wuxuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur aan rabaa weliba ereyga wuxuu isticmaalay madaxweynahan u socdaa ereygaas uu isticmaalay waa laga furay irida wiilkii laab ayuu ku dhuftay gajacad ayuu u dhacay waana afgembiga u dhacay rabayaa yarkiina wuu suuxay ilaa weerar ka dhamaadana wuu suuxsanaada kabacdina wiilashii ayay dileen siyaarada hada dibnad cayaarayay saadiq waan maqlay codkiisa waan arkay darkuu qabaan ogahay nooca u yaalay meesha taagnaayaan ogahay keligeyna maanta 7 qofood oo kale guriga ku jirtay ayaa joogtay iyo dad kaloo fara badan wax maa hadda qarsan isagaa hogaaminaya ciidanka isagaa mas-uul ka ahaa isagaa operationka madax ka ahaa guriga waxaa gudaha usoo galay 5 qofood oo markii weerarka uu dhamaado 20 daqiiqo oo socday sida ku xusan qoraalka uu diray qareen shulman dadka markhaatiga ah ee uu qareenku xuso waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed cali sambalolshe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo uu saadiq hoos iman jiray balse xilliga weerarku uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa markhaati furkiisa. naftii horeysay waa runta waan isaragnay sarkaalkaas isaga ahoo abukaataha u ah ama qareenka u ah saadiq su-aalaha uu weydiiyena way koobnaayeen 4 ilaa 3 ayay ahaayeen waxayna ahaayeen kow xilligan saadiq isbaranay muddadaan isla shaqeynaynay habdhaqankiisa shaksiga wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogaay aan u sheegay marka waxaan maqaatigan ka kacay waxay ahayd wixii aniga iga quseeyey intii aan wada shaqeynaynay aniga iyo saadiq wixii aniga iga dambeeyena wixii hadda uu geystay ama dhibaato ama aniga operationska qaarkiis wax aan ka sheegi kara runtii ma jirin intii aan ogaayna waa ka sheegay. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xer ilaalintu diiday inkastoo aysan BOA-du xaqiijin wuxuuse xusay inuu la tashiyo la yeelan doono qareenno kale oo dacwad dalka dibaddiisa ah uu furi doono dhowaan isagoo ku eedeeyay dowladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shakhsi dembi galay. dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiq howlgalka hogaaminayna annaga indhahana ku aragnay waa ninkii hoogeyna iyo xarunteena soo weeraray dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiqayn qofka weerarka geysta inay sheegto cidda geysta weerarka kale ayaan la wadnaa qareenno howlahaas ku aadan oo in muddo ah
hawshaas ay noo socotay mar alaale markii talooyinkaas ay noo dhamaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan ayaa looga baahan yahay oo u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhamaato ayadana haddii la yidhaahdo waan la wadaagi doonaa publicii dadka Soomaaliyeed laakiin taladeeda iyo qareeno ayaan la wadnaa hawsha. taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Sanbalolshe ayaa ka warramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo cidda ay ka go'do talada kama dambaysta ah. horta aniga weligay goobjoog kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeeciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo askartu ay go'aamin karto ma ahan waa howlgal si siyaasi loo go'aamin karo haddii askarigu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aantood la fuliyey laakiin waxay la tahay weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasi ah oo kasoo go-aya meesha ugu sarreysa inuu yahay. Qaren Shulman ayaan weydiiyey haddii warqadii uu u diray xiriiryaha guddiga qubarada Soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah. Not really. We got a letter from a legal officer at the UN essentially saying they will not reply. That Mr. Bahadur maya runtii waxaanse warqad ka helnay xafiiska dhinaca sharciga oo noo sheegay inaysan ka jawaabin arrinteenna waxaa kaloo noo sheegeen in Mr. Bahadur aysan xilligan ku habboonayn inuu ka jawaabo islamarkaasna uusan nala kulmi karin. Mr. Bahadur waxa uu hogaamiyaa golaha khubarada Soomaaliya inkastoo dawladda Soomaaliya aanay aqoonsanayn wuxuuna diiday inuu wajaho oo uu ka jawaabo arrintan guud ahaan. General Saadiq John ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Soomaaliya ee yimid magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee ka qayb galaya kulankii guud ee qaramada midoobay. dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay in aynu la xiriirno General Saadiq si uu uga jawaabo eedahan waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlayay qareenkiisa Jeremy Shulman. intaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo. ayaa waxaa bannaanka u soo baxay qoraal uu ku saxiixnaa qareen lagu magacaabo Jeremy Shulman oo sheegay inuu yahay qareenka General Saadiq Cumar Maxamed oo loo yaqaan Saadiq John oo hadda ah taliyaha booliska gobolka Banaadir horeyna u soo noqday taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir waxaana warbixin ay qortay hay'adda Monitoring Group ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo eeda kale inkastoo qoraalkaasi Monitoring Group qayb ahaan uu ahaa mid qarsoodi ah oo golaha amniga uun la siiyay haddana waxaa faahfaahintiisa lagu xusay warqadda uu qoray qareenka General Saadiq John warbixintii sanadkii hore bishii November soo baxday waxay ku eedeysay General Saadiq eeda dhowra oo ay ka mid ahayd